shirweyne ballaaran oo ay isugu yimaadeen mid ka mida beelaha waaweyn ee dega gobolka saaxil ayaa ka furmay magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska. shirweynahan oo xubnaha ka qaybgalaya ay ka kala yimaadeen daafaha caalamka ayaa ujeedada shirweynahan waxaa faahfaahin ka bixiyay xildhibaan Xamse Cumar Xorxor oo ka mid ah guddiga shirweynahan waxaana ka mid ahaa ereyadiisa sidan. aad baan ugu faraxsanahay shirkan maanta beesha degta saaxil burco iyo hargeysa ciise muuse halkan ay ku qabsadeen beesha waa beel lagu yaqaano dhisitaankii jamhuuriyadda Soomaaliland waa beel qarnimada Soomaaliland ka soo shaqeysay oo dhistay magacana iyo maamuus ku leh beel weligeed xumaan laga fili karo maaha. number 1 beeshu waxay garab taagan tahay jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland taas beesha ka go'an. halkan wixii lagaga hadlayna waxa faahfaahin doona gudoomiyaha shirka faahfaahin doona ee ururka weyn ee kulan. waxaa iyaguna goobta ka hadlay wufuudi ka socotay caalamka ee ku sugnayd goobta uu shirku ka socday waxaana ka mid ahaa erayadoodii sidan. anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha kulan global UK shirkan aan maanta isugu nimi waxa weeyaan waa shirkii qurba jooga beelweynta ciise muuse kulan global 4 shirkan oo ay kaga tashanayso beeshu arrimaheeda iyo danaheeda khaaska ah iyo midnimadeeda. shirkan ma daarna wax siyaasada iyo mucaaradad midna toona ma daarna waa shir ay beeshu kaga tashanayso ayaheeda ha ahaato waxbarasho ha ahaato caafimaad ha ahaato deegaan. markaa waxaan leenahay dhammaan ummadda maqal iyo muuqaalkayagaba taqaana in shirkaas uu yahay shir ay beeshu kaga tashanayso ayaheeda oo aanu ahayn wax kale oo aanu daarnayn. aad iyo aad baan u mahadsantiina dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. marka hore horta waxaan halkan ka salaamayaa marka hore ilaahay baa mahad oo dhan iska leh. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dadkii shirkan ballaadhan ee quruxda badan soo qabanqaabiyey iyo dadka kale ee iyaga qudhigoodu qurbaha ka kala yimi meel kasta Ameerika, Yurub, Asia iyo meel kastoo ay kaga soo qayb galeenba aad baan ugu mahad celinayaa waana salaamayaa. mar labaadka waxaa halkan aanu ka salaamaynaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan golayaasha iyo dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan. shirkan haddii aan sheego waxa uu daaran yahay ma aha horta shir mucaaradad ama ma aha shir cid gaara ujeeda. waa shir lagaga hadlayo midnimada ama goonistaagga Soomaaliland iyo midnimadooda mar walbana taas ayaa kow ka ah in la ilaaliyo danaha jamhuuriyadda Soomaaliland waayo reerka waxa u dana wixii Soomaaliland u dana taasay ka bilaabmaysaa. wixii kale ee soo raaca waxa ka mid ah ay reerku ku wada tashanayaan waxa weeyaan wixii dantooda ah ee ugu horeeyaan waxbarasho caafimaad iyo dana kastoo ay leeyihiin. reerkan ballaadhan oo ku nool dega 3 gobol ee Maroodi Jeex, Saaxil iyo gobolka Togdheer dhammaan deegaanadaasoo dhan sidii waxqabad iyo horumar loo gaarsiin lahaa. waxaan kaloo halkaa ku darayaa maayarka magaalada Cabdishakuur Cidin oo isagana halkan qudhigiisa aan uga hambalyeynayno waxqabadka ballaadhan ee uu ka sameeyey gobolkii Saaxil ama degmada Berbera isaga iyo madaxda la shaqaysaba iyo golihiisa deegaanka. aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa. kolley warka ma badinayo nuxurkiisa guud waa intaas. maanta runtii sharaf weyn bay noo tahay. shirkani waxa weeyaan waa shirkii afraad ee kulan global ay qabsato weeyaan. run ahaantii waxa weeyaan shirkani
shirkani ma aha shir ku saabsan siyaasad iyo wax la mida laakiin shirkani waxa weeyaan ujeeddadiisu wax kale ma aha waxa weeyaan uun samafal reerku sidii uga shaqayn lahayd midnimadeeda wadajirkeeda iyo isku duubnideeda intaasuu mudaaraa kolley hadalka intiisii badnayd waxaa yidhi guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha UK sidaa daraaddeed aad bay farxad noogu tahay iyo sharaf aad iyo aad baanan u soo dhoweynaa insha allah bidmillahi kariim sidaa uu guddoomiyuhu sheegana 2 cisho socon doona waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacayga waxaa la yidhahaa cabdirasaaq ibraahim waxaan ka imi magaalada Coventry inaan ka qayb galo shirweynaha beesha ciise muuse oo ka mid ah shirarkii caadiga ahaa ee qurbajoogta isugu iman jirtay runtiina aad baan ugu faraxsanahay haddii aan shirka ka hadlo shirku wuxuu khuseeyaa sidii danaha beesha loo horumarin lahaa oo dhinaca horumarka ayuu daaran yahay marka waxaanan halkan ka taageeraynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo taageeraynaa iyo dawladdeedaba marka ugu horreysa ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaa mahad leh dhammaan dadweynaha sharafta badan ee shirkan qiimaha badan ka soo qayb galay marka saddexaad waxaanu halkan ka salaamaynaa ummadda reer Soomaaliland qarankeenna ayaanu aad iyo halkan uga salaamaynaa waxaanu salaamaynaa golayaasha qaranka waxaanu salaamaynaa madaxweynaha qaranka waxaanu salaamaynaa dhammaan reer Soomaaliland oo dhan baanu salaamaynaa maanta waxay noo tahay runtii maalin weyn waxa weeyaan shirkan wuxuu noqonayaa shirkii afraad ee ay isugu yimaadaan qurbajoogta beelweynta ciise muuse isagaanu markaa maanta u fadhinnaa shirkii koowaad halkanuu ka dhacay ingiriiska ama UK kii labaadna sidoo kale UK buu ka dhacay kii saddexaadna waxa uu ka dhacay Sweden kanna waxa weeyaan shirkii afraad magaciisana waa kulan Global 4 ayaa la yidhaahdaa marka waxay noo tahay farxad iyo reyn inaanu ka soo qayb galno sidaa uu sheegay guddoomiye cali bariisle oo UK ah guddoomiyaheedii shirkani wax allaaliya wax siyaasada oo ma garanayay dabada ku haya ma jirto shirkan waa shir aanu kaga tashanayno danta reerka horumarka midnimada reerka iyo maxaa dhahdaaye wadajirkiisa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo waana shirar badanoo saa noogu socon jiro sanadkii walba aanu qabsan doonno gudaha sidaasoo kale magacaygu waa aadan cali axmed aadan geelle waxaan ahay ergada ka timi waddanka Sweden anigu waxaan odayaashiiga horreeya hadle waan soo koobayaa shirku hambalyo beesha ciise muuse hambalyo ummadda Soomaaliland hambalyo dhammaantiin hambalyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirweynaha ballaadhan ee sida weyn loo soo agaasimay ayaa beesha u socon doona muddo 2 maalmood ah